Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaaba. Ilaahay waxaan u rajeynayaa cimri dheer iyo caafimaad iyo nabadgelyo, bashbash iyo barwaaqo. Wadankana Ilaahay nabad nooga dhigo. Nabad unbaa na anfacaysa, balaayo iyo baas kale iyo waxan oo kale nama anfacayn. Ilaahay waxaan ka baryaynaa wax wanaagsan inay wadankan Ilaahay nooga dhigo. Ummadda Soomaaliyeed qalbigoodii baa la jabiyey, qawadoodii baa la jabiyey. qalbiganagii iyo quwadanagii iyo karaamadanagii iyo dadnimadanagii iyo dalnimadanagii dhammaan bayna dhaawaceen nimankan ii sheegay maafiyada ah oo ra-iisul wasaaraha oo Ilaahay waxaan ka baryaynaa ra-iisul wasaaraha baan roble waana rogay oo war rafaadso wadankii dhammaan wuu ragaadiyey. Ilaahay uu naga qabo. waxaan leeyahay ra-iisul wasaare mahan kane tuugan soo kirista meel ka yimid ma naqaaneen wadamo kale ka yimid. Ilaahay horta waxaan ka baryaynaa masiibo ka weyn maanta wadankanagii ma taalo. laf iyo ludba u kala soco wadankii wuu la kala tegay, wuu kala qaaqaatay. wallaahina intuu taagan yahay inaan barajo aniga horta ma sugaayaba intuu kaasi wadanka joogo oo doorashadiina saan u xayirantahay aan horta rarsaba sugmaa yaa waa isu hayaa waa isu lisayaan mataqaanaadii kan uu ii celi kan oo kale uu kusoo gaar balaayo saa isugu hayaanoo marka wadanku waa mid isu celinaya. doorashada waxaa loo ruugayaa oo la rabaa in la isugu celceliyo. waxaa leeyahay adiga wadankan mataqaanaa iska nafaqayso yaa ka ururso waxa qaadi kartid xamaamadaada ka qaado wax allaala wixii gacantaada soo galaya maad iyo noolba cidna ha ka tegin ururso. wax allaala waxay kuu qaadmaa qaado, wax walba waxay kuu rarmaa raro, wixii sumcad alla sumcadanadii u rafaadsha. inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. bal imaaraat muxuu ka baryayaa, bal kayaan muxuu ka baryayaa, jabuuti muxuu ka baryayaa, oo muxuu wadan faqiiriin ah oo rabash ah oo corruption ah oo qashin muxuu ka falay. asagaa keligiis inta dowlad noqdo wuxuu raba samaysan karaa hadduu daacad yahay qofka wadankiisa uu dhexda u xirto si wanaagsan u dhaqmo. maxay tahay waxani waa maxay waxan ninkan xagu ka yimid qashan aruurska gebigiisa qarjaafiyada saa baakadida isku soo warshalay toole yaa horta dhowr qodob dadka Soomaalida waa inay ogaadaan. horta wadankan cadow badan ayuu leeyahay, cadowga gudaha kula degan oo waliba haddana madaxdii ah oo roobla ah oo wadankii saa u cunaya oo saa nin ka xun lifekiisa Soomaaliya sida la sheegay Soomaali mana jeednaba dee taariikhda intaan jirnana ma soo arag wax sheegayana ma maqal. marka ninkan Ilaahay horta naga qabto. Ilaahay gacmaha iyo lagu haba isaga xiray gacmaha iyo lagu haba isaga kaana xiray sumcadanadii buu dhumiyay. annaga dhan uu rogayaa xisaabtamaya maaha, nin fakaraya maaha, nin sumcad ilaashanaya maaha, nin wadanka fakaraya maaha, nin dad iyo dalka fakaraya iyo diin ninkani maaha. tusbax muxuu ku aqrinayaa tusbax xumaan lagu wardinayaa arkay. war qof xumaan sameynayso wardinaysa xagad ku aragteen war yaa Ilaahay yaqaana waaba yaabanahay qof isagoo taagan wax saa u ruugay u salhayna haddana wardinaya tusbax. ma aragteen ninka weligay ma arag mana maqal aniga intaan soo taagnaa ma arag mana maqal. sheeko cusub wasiir dhan oo wadankii ka madax ah oo haddana kartoomo yaryaroo macaawino yaryaroo ma aqaan macaawinada maahane waa adduunkii siiye meesha yaryaan isku soo wareela soo dhow awr sirkii dadka shaqada lahaa aw kaas waa wuxuu u diidayaa macaawino ma ahane waa masiibo waa madaafiic waa gaajo waa warqado waa lacag waxaas waxa la keenay waa wax isaga u dana. u malaynina inay yihiin wax adinka haba yaraatee wax idin qabanay inuu wax dadka dan u ah inuu u keenayo ninka ha ka sugunin roob la yiraa ha ka sugunin hana u fadhiyina. marka dadka waa inay feejignaadaan wadanka waa inay kale waa ma adana waxa indhaha looga fiirsanaa ninkan wadanka jooga wadanka duufaan iyo masiibo iyo daadad baa ku socday ma waxa loo fiirsanayo ma fahmin aniga waxa loo fiirsanaa laakiin wax la fiirsado oo maanta loo fadhiya meeshan ma yaala. aniga waa yaabanahay ra-iisul wasaare dhan oo kaartoomo yar isku soo warayo waxba wuxuu lama furi karantii maxaa loo furayaa wixii siba ugu jira lacag baa ugu jirta
waxaa ugu jira ii sheeg qarxiyadii baa ugu jira waxaa ugu jira wax allaala wuxuu wadankan oo dib ugu dhig lahayaa ku jira wuxuu yiri lacagti ma lacagtu asagu leeyahay ma lacagtu masiibo iyo sumcad darro ka xun yaa arkay qabkanagi baryahan yar aan soo qorqorayno unbuu qar dheer ka ridaya qar dheer ilaahay ka riday maxay waxaan garanoo garlay war anaga ma lacag maxay u taree haddii ninka xitaa balaayiin la siiyo maxay u taree inta haysataa hadda ka badan muxuu ku falayaa lacag ninka harqabaa xagee geena lacag ya war magaca iyo masiibadan wax magacaa ka qaalisan xoolee masiibadan ma iska dhaaftid waa nin waalanaa tahay laa ilaaha illaa maxamed rasuulullah wallaahi shar dhiig laad xirtay inaanana weligaa inaad ka dhimata xitaa iskama siibaysid markaad iska siibtanna xisaabtii kalaa ku sugayso aakhiro ilaahay waxaan ka baryaynaa ya inaadan shaarkaa dhiiggala alla kaa siibin noloshaadaba haddaad aakhiro aad xitaa shaarkaa dhiiggaala koo xiraado wadankii dhan baad dhacday dibbaad u celisay sumcadiisiibaad halaysay waxaa rabtaa adigaa afgembi iyo afduub raba inaad ku qabsatid cid ku afduubaysa iyo cid ku afgembiyeysa ma jira adigaa raba wax kalo inaad samayso xumaan kasta adaa sameeya adaa rabta wax war hal sana ma joodide war faraskaagu dheereeye saan in yar baada joogtaaye war waxaan ra-iisul wasaarena maahane biliis hana laga hor wareejiyo war waxaan hana laga wado ilaahay kan meel daran hageeye hana laga wado kan kenya la socdaa oo jabuuti oo la socdaa oo war dadkaas maxay ku hayaan war wadankaagaa khayraad ka buuxa war wadankaagaa nolol taala war wadankaagaa sharaf taala war intaa ma ku xisaabtan adaaba madaxaad noqoleed haddaad madaxaaga saas waxaad dhihi leed laakiin taaga allah ilaahayo wax kaa adag kuu soo dir wadankiinagii ayaad saa u warwareejinaysaa ilaahay adiga horta wax kuu wareejiye ayaan u baahanaa ilaahay ha kuu wareejiyo masiibo ayaad noqotay waxna ma fahmaysid rooblow rafaad baadna gelisay ra'yigeena wacnaa adigaa rogrogayo ridii haleeyo marna nooma roodiye raaxadii ilaahay marna raasmaalkeediiyo rafiiqeeda ku meeshida iga tagdhe rooblow rafaad baadna gelisay rooblow ilaahay ka boqi maysid walle anaguna kaa boqi mayno saas unbaan kuu daba jooganaa ilaa qiyaamihii baan ku joogan doorashaada rabin dulliyahow waxaad doonaysidna garan maayo rooblow ilaahay rafaad ha ku rido ruuxaaga wuuna dhibaya ra'yi nooma haysid nooma roonid wadankana waad ragaadisay dib baad noo ridaysaa rajadaan lahayn godbeed baad ku ridaysaa rooblow ra'yigaagu litaa rooble wadankaagu waa wadan barwaaqa ah oo wanaagsan oo wax walba yaalaan laakiin ra'yi xumadaada iyo doqonnimadaada ayaad uga faa'iidaysa weysay tukaha waxaa layiri nasiib oo caanaha ku helo wuu leeyahay laakiin nasiib oo ku dhimal ma leh oo ku caba ma lahana layiri sababta waxay tahay wadan dhan oo dhaqaale leh oo sharaf leh oo saa haddee aana taaban circirayaad dhex timid aasaa ka fogsa 2,000 ayar war waxaa maxay waxaas ra-iisul wasaare dhan adoo ah ya soomaali ah saas ah aad dhulka inta isgelisay yaa aad dhiiqa isku gagadisa saas anagoo wallaahi shacbaanaan qaarkeen waxaa isuma qorno yakhay waxaa isuma qorno ya sumcad aan wadankayga iyo sharaftiisa iyo qiimihiisa aan ku waya xaggan ka helaya yaa siinaya cidna siin mayso cidna ima hayso adigana masiibaa ku haysata imaarat 2 kenya 2 jabuuti 2 cadowgeena unbaad la shaqaysaa cid kalood la shaqaysa maba jirto adduunkan war cadowga war niyahow dadka ku dhahaya hooyadaa orodoo soo dil yaa because wadankaaga waa hooyadaa soo dilo haddana qabri ku soo rido haddana yaa qabriga kusoo gobaa lagu leesaad yeelaysaa alla dameer xunida oo dadama xumida oo dulsanida oo daciifsanida xagee ka timid niyo waa garan la ayanugu xageed ka timid xagee lagugu hayay maxaa kaasiya
war maxaa kaa siiya war ma xanuunsan tahay yaa nin sidaan u dhaqmaya saadirkay masalaamo si uusan uma seefgaroobo safihiisuna ma hagaago qur-aanka suuradihiisiyo saadirkaana caddeeyey kitaabkana lagu sheegay waddankani waa sagsaagtay siriq baad ku xiraysaa dabin baad ku suraysaayo meel baad la sugaysaa ilaahay saadirka adiga ha ku qabto hana ku xirxiro sumcadaadii dhulkaad gelisay waddankanagina dhulkaad gelisay shacabkanagii dhulkaad gelisay ilaahay adiga keligaa dhulka ha ku geliyo keligaa ilaahay dhulka ha ku geliyo rooblow rajo ma lehi dunidaan rooblow rajo ma lehi dunidaan ra'yigayga eegaya rooblow rajo ma lehi dunidaan rooblow risaq waa la helayaa roona ayaa wax kuu qaban walla waa yaabnay aniga shacabka soomaaliyeed qabiil ayaa inku qufulmay yaa sida caano iyo biyana aad u qorqorisaan laakiin qabiil qaran noqo waa cidna wax u qaba waa sidaa doontiin bas yeelo waxaa doontiin mafalo qabiil qaran noqo waa waxana idin qabo waa yaa ee qabkiini ma qorshaysataano dumaysu qawaysaano qoladan xun oo dhan maalma iska qabataan qayb kastoy ku nool yihiin qarni kastoy jiraan iyo qole inla joogtaba dhammaantood ma qabataan oo qol ma kusoo xirtaan waddankani markaas hore u soconaya qabiil waxaad qaban maayo idonker anig qabiil shaqadeeda maha shuqulkayga anig weligiina ma isticmaali maalinta qiyaamahan la weydiimaa qabiil shaqadeeda ma aha maxaa qabiil ii qabanaani soomaaliya ay tahay meel ay joogaanba magacaas ayaan ku xusuustaa wax iga galay ma leh meeshay rabaan had joogaan meesha raba soomaali daasid maxaa war xitaa waddanka madaxweyne laga dhigo nin wiilkiisana ra-iisul wasaare laga dhigo gabadhiis adniga loo dhiibo oo dad wada fiican yahan aniga shaqadeeda ma ahan ya sababto xitaa nidaamkaa wanaagsana isoo gaaraya waxbaan nabad baan helaynaa caruurtaa horumar gaaraya war ilmahay dhali doonaana ku noolaanaya markii fuujarka fiican yahay laakiin waddanku kaba soo qaad waa geed baxaya cagaar ah caleen flower miro saa u daadinaya maalin wada harsanaysaan maalin marahaad cunaysaan maalin qorixdiisaa daawanaysaan laakiin dad baallaha ka raftiin miraha tirtirtaan caleenta googoysaan saas u taagnaanaysa oo qalalo saas maxaa taraya waxba ma taraayo waddanka saasaad ka dhigteen baallahaad iyo marihiibaad ka cunteen war soomaaliyeed quwad iyo qurux iyo qaymo qalbigiina iyo gacmihiina ku jiraa meel kalea ka raadinina abadan kitaab qur-aanaad haysatiin waxay ka maqan ma leh qalbigiina iyo gacmihiina ku jiraa waxaad raadinaysiin meel kale ma yaalo qalbigiin madiisaan gacmaha iyo afkood ka wada shaqaysaan cadowgaad iska diidaan cidoo doona ha ahaadee nin walaalka ah adiyada cadow waxaa kugu xun nin magac kula sheegta oo muslim kula sheegta oo waddan kula sheegta oo waddanka saa waa libaax xoolo lagu soo daayay wuxuu arkuu dafaya wallaahi dhunan kalama jeclaan ku dhahaa meeshuu ka soo galo halkuu ka soo galo ka bilaabaya ninkani waa sidaas rab la leeyahay bartanku uga soo dhaco jaf qab wuxuu ka tagaa male taas waa run ama diida ama yeelo taasi waa danihiina shaqadeeda shuqulkeega ma ahan laakiin
dadka qabiil ku dardiray oo meelaha ka qaylinaya wallaahi wax khayr ma leh faa'iidana soomad waa asagaasoo kale dee barito xitaa haddii xukunka loo dhiibo asagoo kale nin wallaahi waxaan dhihi alla dadka war horta hadda waxaaba la helay social media la helay qof walba maanta waa report garaysan yahay qofkii maanta beri doorasho soo galana soo horta soo gudba detailskiisa soo daldal waa la helaa wuxuu yahay laakiin marna roob loo kale adduunkaana ma soo marin roob loo kale tusbax kalo miskiino iska dhigaa waa masiibo wey ilaahay waxaan ka baryaynaa masiibada keligiis inuu ku rido soomaaliya waxaan idin leeyahay muqdishona si gaara ilaaha u maqan balaayaa ku hardamaysa madaafiic baa la keenaya kartoomaa la keenaya balaayaa ku jirta waxa ku jira lama baari karo lama taaban karo wax kale looma diidaayo wadankaasaa la rabaa balaayo qalqalisa unbaa ku jirta wallaahi inaan wax kale ku jirin yaa wax kale kuma jiraan wadankiina adinkoo taagan ayaa hal shaqsi ama in yaroo kaba soo qaadba 100 ka soo qaad ayaa waxay rabtaa 20 milyan wadan ay leedahay 100 qof afka u dhigato wadad xumadaas tee lagu arka yaa xagaa lagu arka waxaanoo kale madhiigaa laynka siiba goor hore waa laynka wada jiidamiya gebgeennaba waaba rooblaysantiiniya doorashada waa very important waa muhiim wadanka muhiim wey in la aado doorasho wax kaloo lagu kala socnaan male war tuug haddaa ratiin xitaa ha soo baxo war nin fiican xitaa hadduu soo baxo nasiibkooday qabaan tuug iyo midka fiican nasiibkooday wada qabaan doorashadii maxaa loo diidayaa doorashada tuug hadduu rabaa soo baxo laakiin doorashadii aawe doorashaa rabna annaga maxaa meelaha lagu meerarsanaya aawe doorashadii yaa dadka diidan way ogyahaane doorashadan ha dhaafaana sideedana ku socoto wax kaloo kala soconaa ma jirto yaa rooblana intuu halkaad sheegayahay anigu rajo ma sugaayo rajo raadi maayo ra'yigaygu wuu ruxmaya ra'yigaygu rajo maleynanowe inta roob la jooge qalbiga ruxmaaye raanow naga qabo soomaalida dhammaanteed waa salaamaya meel aad joogtiin ma caafimaad ayaan idiin rajeynayaa cibaado ayaan idiin rajeynayaa tawfiiq iyo midnimo idiin rajeynayaa qabiilka ood iska diidsaan oo qaran aad ku mideydaan idiin rajeynaya ilaahay qaadirka ayaana hayay qaadirkaa bixiya qaadir haydan mideeye dhammaantiin qaadir haydan mideeye ilaaha wax mideeye qalbigana allahin mideeye dhammaantiin khayr iyo wanaag ayaan inka tegay insha allah waa inoo mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu